أحمد قري برتقيس بدل وهذا الصومالي ما يدلين إثيوبيا تاريخ ذا كم ركعيس وأكتهين إثيوبيا إلا كن شنبق الله بيصدق كيف نعراهي إلا أحمد قري جودين يسكو هيني لح بقول سنضاد عرادة هذا إثيوبيا كين اللح تهلي أنا واحد حسوس طيران تيدي مركا يبشوا بلاطه وحنورين شرني بشي بلاطها بربا كهره الله حبشيدا حبال كريدي سوماها انتيني سو غادي وحنا لغو كوريي إثيوبيا نعيب وحنا لغو كوريي حبش نعيب وحنا لغو كوريي إن قفك إثيوبيا كي قف عدو كو أهون ويحي أنا هاد سبان وحبرشو تجافر يسقاشن كي دهنا إنا نام حاربا إنه هيستريكا وضع دجانا وحيقول إني يوم الصومالي بعتها وحيقول تكسر دحان أو دكتشيما أيها مركي استندريت كي امتحان كنا لقى قاضي معلم كيجي فيلم نداود سي بحال كان ليرا داينا سويرس كسو قرن ميسان ليرا دوني دو كدبر قاي أيها فيلم ككمدها وحنقول معلم وحسم الصومالي بقى وغسلوا الحرمة الصومالي دو أطلع نلم مداحة لكن علبة النهر وحكلوا يجي شيء حسابه مسؤولين كلورين شرين تاني تكسير الصومالي ده حكوا صبرتين وصل لحسر سو مسؤولين وصامرتين صوما مسألة ده مركز يجي اللورد جاي واحد اللورد يشري ديارة ميك 17 أيها قاتي إنتها صو حامود ومد والبا إنتها صو قمع وكدعي مقدش يهرجيس أيه بمقريس بيلود كي أبى بأودي هدي شن قمع وهرجيس كردو شن قمع بنا حمر كردو قمع يبنا إنتها صو مدح وليه هاي إنتها صو صومالي أهنا ودلي كرو يمس صومالي ودلي والنعيب كله بيري وإدوكيشنال سايكولوجي قدي موقتها نعيب كله بيري ياك بالحين فرماته واحد هرمود كالنقضي إنه دقالة هاني سدح قلنا ولا ليالو علاد وباهن نبض بانو باهنهاي هدي لا دغالمي تدبيه تدباتنكي iyo 4 هدي لا دغالمي kun shan boqol iyo 32 Axmed Gure oo Soomaali ahaa iyo Soomaalidii uu watay ilaa Galadios ay daga shimbiro kure iyo ambagishan ku jabiyeen labada goorba Yurub u soo gurmatay kun shan boqol 32 Portugiis baa u soo gurmaday faska dagaama ayaa taqaaneen walaalkii Christopher Dagama oo 400 oo Portugiis u watay ayaa u soo gurmaday Kristaanka awgeedna u soo gurmaday Axmed Gure Portugiis baa dilay ogaada Soomaaliya ma yidilin Ethiopia taariikhda ka marakacaysa mar labaad 77 baynu istilnay naasireed ilaa aad sababo dusheeda ciidamada Soomaalidu gaadhay waa ogtihiin Soviet Unionkii aynu iska saarnay Mareykan iyo Ingiriis iyo midowgii Sovieti ama Eastern Bloc iyo Western Bloc waxa loo heshiiyay Soomaali bila saaxiib ay noqotay soo marxaati kamayna wada ahayn la socay waxa la soo waayay Soomaaliya saaxiib ay leedahay walaalayaal waynu surrannahay xabaal iyo ninkeed loo kala tag Soomaali haddaan nahay innaga ay surran soddonkii sanadood ee maanta aynu burbursanayna miyaa aragteen cid inoo soo gurmatay mar walba marka Ethiopia wax daaraan waxa uu soo gurmanayaa walaalaheed reer galbeed maantadan oo ay Oromo gacanta ku hayso xukunkii dirku kuma imanin waa loo soo gurmaday mingisto xayl-maari markii uu dhacay baa loo soo gurmaday innaga haddaan cidba inoo soo gurmanahayn in aynu nabad ku noolaano Soomaa in aynu garanno masaarida 100 milyan iyo dheeraadka ah Israa'iil shaayar bay dooratay inay la noolaato nabad kula noolaato maadaama ay loodi kari weeyday Jordan baan tagay waxaan ninkii boqor Xuseen ahaa nin aad u maskax badan buu ahaa meesha Aqaba la yiraahdo shiru tagay Aqaba waa meel yar oo sida U shape ka leh halkan waxa ku taala Aqaba daarta ku xigta waxa ku taala Eilat leerkii Israa'iil waa ku muuqda daarta dhinacan ku xigta waxa ku taala Sinai halka waxa ka sii xigta Saudi Arabia afartii leer baa sida isugu muuqda waa meeshii Salaaxudiin al-Ayyub Aqaba dhinaceedani uu ku jabiyay Kiristaankii isa soo kaashaday waaga laakiin boqor Xuseen wuxuu isriiseed ku jiri kartaa Israa'iil kaligeed ma reer galbeed oo dhan ba ka dambeeya nabad ku noolo islaamnimaduna nabad ku diidi mayso yuhuudu waa uu la ganacsanay nabigeena Maxamed aha Madiina Soomaa soo taariikhda islaamku kama rakici mayso walaalayaal haddii Israa'iil nabad lagu la nool yahay
ومحي سببت اللغة قيلنا يا محل وله شيء إثيوبيانكا محل وله شيء إريتريا محا استحقال كدقالة قبلك مدحونه إنه هرمود كوجيه أنه النبض بانو بدني دقالة إيه هناك بانو بدني هديك لو واحد عايز قبائل بين الصوماليين إن حل كاسون لإنه إدارته شلا يصير شبهها بدو ولا بس حرف خرج إساق أصلا بيلبحن هو يو اس سي بيلبحن دارود اس اس دي اف بيلبحن رحوين مردم بي ار ار لبحday warma waxa rabtaan shabhadihi kanaalkii markii aanu soo xidho madaxweynuhu soo xidho yiri nabad baan ku wada noolaanayna waxa la yiraahdaa maxaa loo heshiiyay waxa la rabaa in as magac loo soo hubiyo marka madaxweynaha la isra fikiran waayo hadii sababa qiblada aanu tukanayna ay noqoto waxa mucaaridka aanu soo hayna isdhexgalkii dhaqaalaha aanu isugu hayna waxa weeye maxaa nabad u qaadan